beri waxaa jiri jiray nin biyoole ah oo dadka biyaha ka iibiya. Ninkan waxaa lagu yaqaanay inuu yahay qof qalbi wanaagsan oo daacad ah. Dadku waxay jeclaayeen dabeecaddiisa wanaagsan, waxa uuna ahaa qof caan ah oo magaalada oo dhan laga wada yaqaano. Haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xidhan channelka, soo dhowow mar kale. Haddii aad ku cusub tahayna, fadlan nagu soo biir adiga oo taabanaya like, subscribe, jalaskana furanaya. Hana hilmaamin inaad saaxiibada la wadaagto. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu boqorkii maqlay ninkan oo dadkii oo dhan ka wada sheekaysanayaan wanaaggiisa. Kadibna waxa uu damcay in uu la kulmo. Wasiirkiisii ayuu u diray si uu u keeno boqortooyada. Markii loo keenay boqorkii ee ay in badan iswaraysteen, boqorkii ayaa u soo bandhigay in uu boqortooyada ka shaqeeyo oo uu waraabiyo dadka boqortooyada ku nool iyo kuwa soo booqdaba. Ninkii wuu ku farxay arrinka, waanuu oggolaaday. Maalintii ku xigtay ayuu ninkii biyoolaha ahaa u soo diyaargaroobay inuu boqortooyada ka shaqeeyo. Waxa uu ku soo labistay dhar kuwa ugu fiican. Marka uu dadka martida ah biyaha siiyo, kadib waxa uu u tagaa boqorka si uu ula sheekaysto, waqti fiicanna ula qaato. Ninkii biyoolaha ahaa waxa uu sidaa ku jiraba, markii dambe waxaa ka hinaasay wasiirkii. Waxa uu ka xanaaqay miskiin yar oo biyoole ahaa oo uu waddada ka soo kaxeeyey, ayaa maanta uga dhow boqorka. Waxa uu ku fikiray sidii uu uga takhalusi lahaa ninkan, ugana eri lahaa boqortooyada. Xilli ay galab ahayd, isaga oo ninkii biyoolaha ahaa ka soo rawaxay shaqadiisii, ayuu wasiirkii u yeedhay. Waxa uuna ku yidhi, boqorku wuu kaa cabanayaa. Biyoolihii ayaa ku yidhi, maxaan sameeyey ee uu boqorku igaga cabanayaa? Wasiirkii waxa uu ugu jawaabay, boqorku wuxuu ka cabanayaa urta afkaaga. Marka aad boqorka u tegaysid, afka maro ku xidho. Ninkii biyoolaha ahaa sidii ayuu sameeyey. Mar kasta oo uu boqorka u tegayo, afka ayuu maro ku xidhaa. Boqorku marka uu arko wuu la yaabaa sababta uu afka ugu xidhan yahay marada, laakiin waxba ma weydiiyo. In badan markii uu sidaas samaynayay, maalintii dambe ayuu boqorkii weydiiyey wasiirkiisii, muxuu biyooluhu afka ugu xidhaa marada mar kasta oo uu ii imanayo? Wasiirkii ayaa ku yidhi boqorkii, boqorow, ninkan biyoolaha ahi waxa uu igu yidhi waxaan ka cabanayaa boqorka, waxaanan kaga cabanayaa urta afkiisa oo ii soo urta mar kasta oo aan la joogo. Boqorkii markii uu hadalkaa maqlay wuu xanaaqay, waxaanuu go'aan ku qaatay in uu dilo oo uu qoorta ka jaro biyoolaha. Maalin isagoo ninkii biyoolaha ahaa qasriga ka sii rawaxaya ayuu u yeedhay boqorkii. Waxa uuna siiyey ubax, kadibna waxa uu ku yidhi, waa hadiyad ee iga guddoon. Ninkii biyoolaha ahaa wuu ka guddoonay isaga oo ku faraxsan, kadibna wuu iska tegey. Mar alla markii uu sidaa uga dhaqaaqay biyoolihii, isla markiiba boqorkii ayaa u yeedhay mid ka mid ah askartiisa. Waxaanuu ku amray in uu dilo oo uu qoorta ka jaro qof kasta oo uu arko isaga oo sita ubax qasriga dhexdiisa. Ninkii biyoolaha ahaa oo sii rawaxaya oo sita ubaxii ayuu arkay wasiirkii. Kadibna waxa uu weydiiyey, xaggaad ka keentay ubaxa? Ninkii biyoolaha ahaa ayaa ugu jawaabay, waxa i siiyey boqorka oo igu sharfay. Wasiirkii ayaa hinaasay oo xanaaqay, kadibna wuu ka qaatay ubaxii. Waxaanuu ku yidhi, aniga ayaa xaq u leh oo kaaga dhow boqorka. Ninkii biyoolaha ahaa isaga oo faramaran ayuu iska tegey. Wasiirkiina ubaxii ayuu qaatay. Wax yar kadibna waxaa arkay askarigii lagu amray inuu dilo qofka uu arko isaga oo sita ubax qasriga dhexdiisa. Kadibna qoorta ayuu ka jaray oo uu dilay ninkii wasiirka ahaa. Sidaas ayuuna ku dhintay wasiirkii. Maalintii dambe biyoolihii ayaa soo shaqo tegey oo yimid boqortooyadii. Markii ay kulmeen boqorkii wuu yaabay. Waxaanuu isweydiiyey soodigii amray in la dilo. Si lama filaan ah ayuu u weydiiyey, maxaad afka ugu xidhataa marada markaad ii imanayso? Ninkii waxa uu ugu jawaabay, boqorow, wasiirkaaga ayaa igu yidhi boqorku afkaaga ayuu ka cabanayaa, sidaa darteedna waxaan ku soo xidhay afka maro. Boqorkii waxa uu weydiiyey, meeyay ubaxii aan ku siiyey? Ninkii biyoolaha ahaa waxa uu ugu jawaabay, waxa iga qaatay wasiirka, waxaanuu igu yidhi aniga ayaa xaq u leh oo xaq u leh in la sharfo. Boqorkii waxa uu fahmay waxa meesha ka socda. Waxaanuu yidhi, run ahaantii wasiirka ayaa xaq u lahaa. Mahmaah Soomaaliyeed ayaa tiraahdaa, god ha qodin, haddii aad qodana ha dheerayn, ku dhici doontaana mooyaane. Wasiirku waxa uu isku dayey inuu ka takhaluso ninkan miskiinka ah ee biyoolaha ah. Dabinkii uu dhigay iyo godkii uu qoday isaga ayaa ku dhacay.
waxayna ka mid tahay cirib xumada ay leedahay xaasidnimada iyo shirqoolku.